بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaa stuudiyaha inoogu yimid gudoomiye ku-xigeenka ururka USB ururka midnimada Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi. waxaanu doonaynaa inaan wax ka weydiino dhawaan waxaa magaalada Garowe mudane Cabdiweli Gaas madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay golo wasiiro ah. golaha wasiirada ah ayaa waxaa ka yimid eedo badan oo dadka ay ku qanacsaneen. marka mudane Jaamac Cumar Ismaaciil oo ah gudoomiyaha Maaqir isla markaana ah gudoomiye ku-xigeenka USB baan waxaan wax ka weydiinaynaa sida uu arko arrinka ayada ah. waad salaamantihiin dadkoo dhan waa salaamayaa especially Maaqir Awdal iyo Khaatumo waa salaamayaa. haddaad wax iga weydiisay Cabdiweli Gaas dowlad buu dhisayey, doorashuu ku jiray, wuxuu yidhi waxbaan bedelayaa, waxbaan hagaajinayaa, Puntland jannaan ka dhigayaa. ninkii Faroole la oran jiray hambalyaan u dirayaa, sababtoo aan hambalyada ugu dirayaa halfood baa lagaga helay, waa gacantuu saaray, waa ka tegay meeshii buu yidhi, dimuqraadiyad buu muujiyey. Cabdiweli Gaas markii loo dhiibay iyadoo aan laga joogin 2 casho ayaad moodaa madmadow fara badan inay soo baxeen. waxaa jirtaa Puntland waxa dhistay reero walaalaa dhistay. reerihii walaalaha reer mooyaane reerihii kaloo dhan waa qaylinayaan. waxa weeyaan Maaqir haddaanu nahay waxaanu ku lahayn ilaa 10 wasiir iyo wasiiro ku-xigeenno baanu ku lahayn. wasiiradu inay 3 ahaayeen laakiin waxa badnaa wasiiro ku-xigeenada. waxuu simay jilibyo hoose oo reerkiisa ah buu 2 wasiir siiyey. Maaqir oo u dhigantaa reerkiisa korena halkay reerkiisa kore ka qaateen 10 wasiir, Maaqir 2 wasiir buu siiyey. arrintaasu arrinaad looga xumaado weeye. meesha baran la yiraahdo iyo dhahar si fiican baa looga soo dhaweeyey. waxa la islahaa loo arkayey inuu uga fiicnaanayo ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas, laakiin waxaad moodaa waa marka horeysa inuu dastuurkii oo aan baarlamankii bedelin ayuu qabaa'il kale oo aan Puntland ahayn ku soo daray. sababtoo ah marka lagu soo darayo dee madaxweynuhu dastuur maaha, dastuur baa yaalla in baarlamanku ka fadhiisto oo dastuurkii hore wax laga bedelo weeye. reerka Maaqir la yiraahdo, reerka la yiraahdo Axmed Harti, reerka la yiraahdo Siwaaqroon, dadkii oo dhan waa qaylinayaan. I don't know, arrintu ma hagaagsana. maanta waxay ku tahay 6 casho muddo 5 casho weli lama dhaarin wasiiradii uu sheegay, oo waxaan maqalay guux badan baa ka jira meesha. marka waxa weeyaan nimankii reer Maaqir oo 9koodii foodka siiyey Cabdiweli Gaas siday ugu liseen uguma hambaynin. aad iyo aad baanuna uga xunahay. waxaana idin leeyahay reer Maaqirow mar daga allaha dago. waxa weeyaan Puntland ninka ugu horeeyaan ah Puntlandis baan ahaa. magacayga Jaamac Puntland baa la oran jiray. anigoo USB gudoomiye ku-xigeenkii ah baan misna Puntland aad u taabacsanaa. maanta waxa ii muuqata reer Maaqir iyo jiliba yaryar inuu simay. markii Puntland la dhisayey annaga Cawad Casharaan oo matalayey, Maxamed Harti waxaa u matalayey Cabdilaahi Yuusuf, qolo walba way lahayn Maxamed Cabdi Xaashi baa u matalayey reer Khaatumo. marka bahasha dad walaalo isu yimi bay ahayd. hadda waxaa muuqata inay Puntland dhinac ka raran tahay. I don't know. waan gartay adeer Jaamac Cumar.
waxaa maanta aan raadiyaha ka dhageystay wareysi uu bixiyey madaxweyne cabdiweli gaas isagoo dhahayo arrinta tan waxaan kusoo xulay si cadaalad ah anigoo u dhowaanaya xagga cadaaladda iskuna dayaya inaad dadku qanciyo qabiilada baa waxa uu soo magacaabay 10 ka mid ah reerkiisii 2 wuxuu siiyey ciise maxamuud 2 wuxuu siiyey ismaan maxamuud 2 wuxuu siiyey cumar maxamuud bicidiyahan hal buu siiyey sawakroon cali jibraa'il cali saleebaan weliba xilalkii ugu waaweynaa oo ahaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadaba intaba reerkiisii ayuu u dhiibtay isla markaana waxa uu ku dhawaaqay in arrintaa uu si cadaalad ah uu ku soo xulay reerihii kale oo la dhistay maamulka puntland waxaad moodaa arrintaa in wax uu u gartay ma ogiye in uu ku tagrifal uu sameeyey oo uu u qaatay puntland wax ay leedahay beesha majeerteen oo asaga ka soo jeedo beelaha kalena ay marti ka yihiin haddaba arrinkaa ayada ah maxaad ka oranaysaa waxa weeyaan tagrifal weyn buu sameeyey dastuurkii dembi buu ka galay ilaahay baan kugu dhaarshay ma ciise maxamuud baa 2 wasiir qaadanaya warsangelina 2 wasiir buu qaadanayaa caqligay ka fog tahay waxa weeyaan boqolaal qabiil weeye booga islabe nuux umar bihi duur waa warsangeli qabaa'ilkiisii reer xaaji xuseen ciise سعيد عيسى جبريل سعيد آدم سعيد نيبد 200 oo qabiil oo waaweyn ayaan midna aan meesha iska hor arag marka waxa weeyaan tagrifal weeyaan arrintii ninkii odayga ahaa arrin aad iyo aad looga naxo weeye laakiin dembiga waxa leh nimankii yiri baran kusoo dhaweeyey oo yiri cabdiweli baa nooga roonaanaya oo odaygii hore meel kaga dhacay marka waxaan leeyahay usna wuxuu yiri waxbaan hagaajinayaa waxbaan in cabdulla xasan baa wuxuu yiri gabaygiisa nin baa yiri waxbaan ka dhigayaa sidaan aan sameynaya markaasuu gabiyo wuxuu yiri bandhow dadaal yaana noqon daadaf been badane waxa weeyaan cabdiweli waxaanu islahayn daacad buu noqonayaa wixiini buu idinka sii badinayaa annagii iyo jilba yaryar buu meel naga dhigay marka anigu maakhiray arrintaada ka tasho maakhir waa inay tashataa iyay dib u sugin cabdiweli waa aragnaa cabdiweli gaas waxyaabaha uu sameeyey iminkana waxaan kusoo goynayaa nimanka khaatumana dee way istaageen oo khaatumay samaysteen oo ismadoodii oo dhan baa isku raacay dee maxaanu khaatumo kala hortagnaaba annagii arrintaa waxaan jeclay inaan kaa dhex galo sida la wada og yahay waxaa indhoweed wadahadal hoose u socdaa maamulka oodal iyo khaatumo iyo mas-uuliyiin ka mid ah maaqir oo adiguba aad ka mid tahay oo la doonaya in dhammaan ay samaystaan hal maamul oo baaxad leh sida uu dastuurka federaalka uu dhigayo arrintaa ayada ah ogaanta ka USP ahaan adigoo ah guddoomiyaha maaqir maxaad kala socotaa howlaha arrintaas way jirtaa way socotaa ingiriiska waa ka socotaa north americana waa ka socotaa soomaaliyana waa ka socotaa marka qayladu orgiga ka weyn dadkii waxay islahaayeen markii hore farola mindha wax sidan yiri farola sidan yiri cabdiweli baa ka wanaagsan cabdiweli baa wax saxaya cabdiweli arrintiisi waxay noqotay maamaadii ahayd salaamullah cala alxujaaj waxa weeyaan maakhir iyo khaatumo iyo awdal way wadayaan halgankii waxaan kaloo taa ku darayaa oo aan raacinayaa dhinacan federaalka waxaad moodaa in ay ku shireen 2 beelood UNC iyo SNM inay ku shireen meeshii la oran jiray Turkiga madaxweynaha waxa weeyaan waa nin qoslayo oo faraxsan oo markii aanu hayo aanu u tagnay doorkan waxbaan ka bedelayaa buu yiri
reer maakhir iyo reer awdal iyo reer khaatumo shirarka way ka qayb gelayaan turkiga waxaa noo caddaatay inuu halkiisii ka wato uu sidii uu kuwii hore ugu khaldamay arrinta aad iyo aad baa looga xun yahay sababtoo ah waxaan u malaynayaa dastuurka iyo ingiriiska wuxuu la saxeexday somaliland buu madaxweynaha federaalku maqlay waxa weeyaan reer walbi reerka la yidhaahdo maakhir suldaankooda ayaa ingiriiska la saxeexday awdal odayadooda iyo suldaankooda ayaa la saxeexday ingiriiska nimanka la yidhaahdo beesha dhexe ama reer shaysaa odayadooda iyo caaqiladooda ayaa la saxeexday ingiriiska reerka khaatumo la yidhaahdo somalilandba ka mid maahayn waa la qabsaday dagaal baa lagu qaaday daraawiish bay ahaayeen iyagu somalilandba kama mid ahayn dal la qabsaday oo ingiriis qabsaday buu ahaa sidaa awgeed waxaa jirta combyuutar walba waa ku jirtaa meel walba way taalaa in ay reer walbi reer awdal reer maakhir reer khaatumo inay ingiriiska la saxeexdeen wax ay noo saxeexeen annaga beesha dhexe ma jirto dhulkayaga annagaa wax nala ka weydiinaya waxaan aada uga xumahay isim wax ma weydiin oo caaqil wax ma weydiin oo siyaasi wax ma weydiin waxa weeyaan dadkii wuxuu arkay in laba beelood ay wada shirayaan snm iyo unc aad baana uga xumahay aada iyo aad baan uga xumahay in laba calankii soomaalida iyo calankii beesha dhexe in sidii laba dowladood oo loo wada shirayo ay ishor fadhiistaan oo ay yidhaahdaan hadallada in yar unbayna tusaane inta badani waa inoo sir oo yaan soomaali ogaanin unc iyo snm una ku ekaato arrintaa waa laga dheragsan yahay waxaad moodaa waxaan la hadlayaa ra-iisul wasaaraha cusub oo federaalka waxa weeyaan waa inuu wax ka bedelaa wasiiradan arrimaha gudaha oo reerkiisa ah madaxweynaha inuu ka daayo wasiir arrimo dabadeed baa jiray arrintii lagama hadlayo gobollo wasiirka daakhiligu gobollo iyo waxaasuu ku shaqalaya iyo dowlado hoose wasiirkii arrimaha dibadda oo dowladda federaalka ah maxuu iman waayey meesha maxaa wasiiradan arrimaha gudaha maxaa keenay ila waaba gudo iyo dibad baa jiray marka sida uu wuxuu wado xasan sheekh waa af macaan yahay waa qoslayaa misna waxaad moodaa dadka tusayo iyo ta isaga u qoranay inaynay isku mid ahayn marka hadda waa la ogaaday xasan waa lagu bartay xasan waan dambe loola tegi maayo wuxuu keenana waxay u gooni yihiin oo ay ku eg yihiin snm iyo unc asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka USB mudane jaamac cumar ismaaciil